gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax oo sheegay in ay howlgaladani bilaabo doonaan ayaa waxa uu ka codsaday shacabka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanada hoos yimaada Buulburti iyo Jallaqsi in ay kaalintooda ka qaataan howlgaladaasi iyo maamulka gobolka dhamaanteen waxaan ka wada hadlaynay sidii wax looga qaban lahaa nabadgelyada magaalada Beledweyne oo labadii habeen ugu dambeysay runtii wax weyn laga qabtay hadda kadib sidoo san cadowga u soo gali lahayd ama haddii wax ka dhacaan aysan u baxsan lahayn wixii wax sameeyay alxamdulillah arrintaas waa la soo afkartay wixii loo baahnaa waa loo diyaariyay muwaadiniintana waxaan leenahay naftiina iyo hantidiinaba inay badbaxdo aadan ugu dadaalayno adinkuna garab ku siiya ciidamada qaranka iyo kuwa kaleba inay gutaan waajibkooda information kana aad soo gaarsiisaan iyo xogta dhanka kale ee guula bardaan dhibaato weyn guula barda ka jirta dhibaatadaas waxay dusha ka saaran tahay culays ku tahay international community-ga caawinayo ciidamada Amisom ee nala jooga iyo ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa kale qalabka sida ciidanka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed intaba waan ka wada shirnay dawladda dhaxana waan isla tanfiiqayna ama waan isku xirahayna arrinta dhawaan insha Allah ta'ala faraj bay dadkaas helayaan dadka waxaan baaq u dirayaa dadka tuulo joogta ah iyo miyiga way dagaalami jireen waan ognahay gacan bay geysan jireen maanta awood baa idin timiday meelihii fariisibada dhan waa laga ciirin nimankaas hubkiina qaata iska celsha maartay isha ka dhigta sharaftiina iyo karaamadiina ay meesha wadaceen gudoomiyaha gobolka ayaa ugu digay shacabka ku nool gobolka Hiiraan howlgalada ciidamada dawladda ay sameeyay doonaan ay kuwa Amisom shakhsiyaadka ugu soo qabta in aysan soo daba kici karin inta baaritaano lagu sameeyo cidda ka daba timaada ee qof sharaab ah oo la soo qabtay daba socota ama oday ha ahaado ama wadaad ha ahaado ama haween ha ahaado ama cidda ahana ahaado waan ku daraynaa anagu meeshay ku sii biiraan haddaad ka naxaysid ka qaba hadarin soo dadka dilin Cabdishakuur Ismaan Ali SNTV